xaaraantu waa farakuturis, waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wax loo odhan karo. xalaashuna waa waxa soo hadha. laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni waxay noqotay xaaraantii yarayd ee farakutiriska ahayd in wax walba la saaro. sidaa ogeed acyaantu waxa caynta uu qofka muslimka iibinayo waa inuu garanayo. tusaalayaal baan idin sii kooban. maanta industriga ama warshadda waxaa loo yaqaano dad aan muslim ahayn baa gacanta ku haya. waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diinlaawayaal yihiin baa gacanta ku hayay. imikana eshiya ku soo biirtay oo ama malaaxido ah siday u badan yihiin chinesku ilaahba rumaysnayn, ama hinduus iyo beliya baas kale ah iyo buudiis. idan diinlaawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeya oo kasii fog ahlu kitaabka. warshaddu markay shayga samaynayso 2 shay baa asal oo ay ka fekertaa. shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability, inuu productionku aanu kala go-aynine aada heli karto, wafradiisa inuu mutawafir yahay. dunida waxaa badani wuxuu noqday ee mutawafir agtooda ah maalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto ama daawo oo dhan eegto, waxaasoo dhan in badan oo ka mid ah ama dufan xaaraana ku jira, ama alcohol xaaraana ku jira, ama neef aan la qalin wixii baa ku jira, ama doofaar wixii baa ku jira. waayo iyagaa more available, iyagaa la helaya. waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood haddan ka waramo inaad ka yaqyaqsootaan, waayo dadka waxaa ka shaqaynaya waxaan see loo helaa. tusaalaan ku siin, cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mida proteinska lagu daro. qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa. caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka, maydkan caruurtan la daadiyey. qaarkood baranbaro la beeray, beed baranbara laga soo guraa. baranbarada soo mataqaanayn proteins baa laga soo guraa. qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa. proteinska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan. qaarkood yani ninka waxba xalaalka ma aha, waxba xaaraanka ma aha. qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey. walidaalika waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yara aynu iibina waa nacnac. hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday 9 markaasaan furay. waxaa hi war barorta aan akhriya waraaqda yara ku qoranayso jalaatiin baa ku jira. yani xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sareeya wax waliba waa ku jira. taa maxaan uga dan leeyahay, taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yahay. waxaan uu iibinayaa qofka muslimka ah uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay, ama sharaab ha noqoto, ama cunno ha noqoto, ama daawo ha noqoto, ama waxay doonaysa ha ahaato. waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi. xaaraantu waa yartaynu dhe laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen. waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa waxa hortaagan taxaddi alxalaali walxaraam ugu horeyn. tijaaradaada see baad uga ilaalin lahayd xaaraanta, see baad uga dhigi lahayd wax xalaala. bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku, oo xoolaa waynu jecelnay. wainahu lixubi اlkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama. bini aadamku xoolaha aada buu u jecelyahay inuu helo, laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan. waa waxyaabaha laynagu beeray si laynoo itixaamo. nabigu calayh salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii 2 waadiyo dahaba uu haysto, labtaqa thalis buu dalbaya, mid saddexaad buu raadinaya. guriga bini aadamka ciidunbaa buuxisa buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam.
haddaba waxaynu u baahannahay inagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxa laynagu yidhi kaasina waa xalaal kaasina waa xaaraane kaad qaadataa baana lagugu abaal marinaya dhanka kalena nafta bini aadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaame kale waxaa ka mid ah uxdirat ilanfusu shux waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo wa kaana alinsaanu qatuura nebigu wuxuu tilmaamaya yahra bnu aadam bini aadamku waa gaboobaa laba shay laakiin ma gaboobaane dhallinyaradu mu ka ahaadaa xoolo jacaylka iyo ilaalintooda iyo cimriga iyo amalkaa dheer iyo da-daas in la sii jiro bini aadamku kama gaboobo maxaa ku saaran marka dunida waxa yaallaa baynu idhi waa nooca ah technologigina wuxuu fudaydiyey wax walba in la qaabayn karo wax walba in la qaabayn karo wax badan oo aanad adigu sawiranayninna inay cunooyinka ku jiri karaan matalan cunadu daasadaha ku jirta wax dhadhan loogu sameeyaa lagu daraa oo chemicalska marka la isku walwalaaqo wax dhadhan u sameeya waxa dhadhanka u sameeya xaggu ka yima isweydiin leh waxaa lagu daraa wax isku haya inaanay kala miirmin oo iskasoo waxa isjiidadkiisu inaanu kala bixin ayaa lagu daraa waxaa lagu daraa wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin waxaa lagu daraa konton shay waxaa lagu daraa qaar midab loogu yeelo waxaasoo dhami cunadii caadiga ahayd baa lagu walaaqaya cunadii xalaasha ahayd ee caadiga ahayd baa waxaan inta lasoo qaadaa lagu walaaqay waxaad moodaysaa inuu beris khaliya yahay ama inuu fuul khaliya yahay ama inuu cambe yahay baad ugu haysataa laakiin waxa ku walaaqane ku guda jira way tiro badan yihiin sida awgeed waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimka ahi weliba dowladaheennan burburay aan cid waxbaadhaba lahayn waa laga yaaba meelaha adduunka dowlado adagi ka jiraan inay dowladuhu laab leeyiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa se maxaa la soo deynaya in la isweydiiyo waxaan leenahay cala lmuslim bay maanta waxoo dhami saarantay qofkan taajirka ee muslimka abaa waxaasoo dhami saarantay inaad xalaal iyo xaaraan kala dooratid